السلام عليكم عيلكو waxa uu dhibaato ku yahay caafimaadka qof kasta sidoo kale miisaan yarida ka dhigaysa caata iyo madluun kama dhigna inaad caafimaad qabto balse sida xaqiiqda ah waxay ka dhigaysaa mid leh jirooyinka sida caabuqyada lafaha lafa burburka taran xumada iyo difaac yarida kugu timaada qofka caadiga ah inay miisaan yari hayso waxa lagu ogaadaa isbarbardhigga miisaankiisa iyo dhirirkiisa inuu ka yaraado 18.5 ama 18.0 waxaana afka qalaad loo yaqaanaa BMI ama body mass index qiyaasta tiradan waxa looga gol leeyahay inuusan hoos kaaga dhicin culayska jirkaaga si loo ilaaliyo caafimaadkaaga laakiin haddii aad tahay mid miisaan hooseeya ama culays yar waxaad u baahan tahay inaad hesho culays muruq iyo xayr isku dheelitiran tanina waxaad ku gaari kartaa adigoo cunaysid cunooyinka caafimaadka leh adoo raacaysid habdhaqanka uu nafarayo caafimaadka muuqaalkeena maanta ayaan kugula wadaagi doonaa 6 cunno oo kuu fududaynaya inaad dhaqso ku hesho miisaan isku dheelitiran kahor muuqaalka haddii ay tahay markii kugu horeysay janaalka aana danaynayso sheekooyinka caynkan oo kale ah fadlan like dheh subscribe-na saar janaalka gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh aan bilaabo fiidiyowga sheekadayna wanaagsan ee maanta ayaa waxa ay tahay waad heli kartaa miisaan wanaagsan meel kastoo aad joogtid adigoo dhibaato u geysanayn caafimaadkaaga aasaasiga ah cunooyinka tamarta leh loona helo si dabiici ah kaliyana ay ku jiraan xoogaa yar oo cunooyinka kiimikada lagu daray ah inaad cunto cunooyinka nafaqada leh welibana dabiiciga ah waa wax u wanaagsan caafimaadkaaga 6 qodob ayaan ku soo koobay kuwa muhiimka u ah miisaanka caafimaadka leh qodobka koowaad bariisku waa cunno la iska heli karo lehna nuucyo kala duwan sida caadiga ah loona tixgeliyo inuu yahay mid ka kooban cunnada nuuca loo yaqaan carbohydrate taasoo ah mid uu yar yahay borotiinkeedu markaan u nimaanno waxyaabaha ugu badan ee ku jira bariiska ayaa ah sokorta nuucyadeeda kala duwan nafaqada nuuca loo yaqaan folic acid fitamiinka loo yaqaan fitamiin B iyo birta dhammaan kuwan aan sheegay waxay dheelitiraan cunnada aad cunto ama aan cunno galaas walba oo bariis ahna waxaa ku jiri kara 200 oo xad ama tamar iyo 40 garaam oo carbohydrate ah cunnada bariiska iyo carbohydrate-ka waa mid laga helo awood ama energy ka qayb qaata helidda miisaan dhammaystiran oo wanaagsan qodobka labaad looska hadhuudhka ama cunnada diirka leh iyo abuurka qaar kooxda ugu wanaagsan cunno ahaan ee laga helo dufanka ama xayrta nuuca loo yaqaan omega 3 fatty acid afka qalaad waa kuwan isugu jira hadhuudhka looska iyo abuurka qaar dufankan omega 3 fatty acid waa kan ugu fiican ee la isticmaalo waxna ka tara ama u fiican fiyoobi qabka wadnaha kaliya ma ahan wax laga helo nafaqooyinkani ku jira abuurka iyo looska balse waxaa kaloo jira in laga helo macdanta nuuca loo yaqaan calcium iyo waxyaabo ka hortaga unugyada waxgaareen inay saameyn u geystaan jirka cunooyinkan sida looska mar kastoo aad socotid waxa uu kugu caawinayaa inaad dhaqso hesho miisaanka aad rabto ee caafimaadka leh qodobka saddexaad bataati macaanka nuucan cuntada ah waa mid aad ka helaysid nafaqooyinka fitamiiniska hadhuudhka ama cunnada dufta leh iyo macdanta potassium cunnadan ayaad ka heli kartaa qaybaha kala duwan ee suuqyada magaalooyinka waana mid dhinac kasta kuugu wanaagsan raashinkan ayaad u samaysan kartaa inaad dubato shiilato ama aad karsato dadka qaarkood waxay u samaystaan qaabka ay doonaan haddii aad jeceshahay qudaartan bilow oo cun si aad u yeelato culays fiican qodobka afaraad ukunta waxaa sannado badan loo haystay in ay tahay mid dufan badan
oo waxyeello u geysata caafimaadka qofka. ilaa waqtiyadii dambe cilmi-baadhisyada caafimaadka ay sheegeen in dufanka ku jira ukunta uusan ahayn mid saamayn ku leh cudurrada wadnaha sida dufannada kale ee cuntooyinka laga helo. halkii ukun qiyaas ahaan waxaa laga helaa 7 garaam oo borotiin ah iyo 5 garaam oo dufan ah marka loo eego cilmi-baadhisyada kala duwan. sidoo kale waxaa laga helaa fitamiinno iyo macdan la dagaalanta cudurrada soo weerara jirka. caafimaad ahaan iyo miisaanba ukuntu waxay u fiican tahay adkaynta lafaha iyo murqo go'a yimaada markii la sameeyo jimicsi. qodobka 5aad saliid saytuunka ama saliidda afakaadhada. adduunka waxa ugu badan ee laga helo energy nafaqo leh iyo dufan caafimaad qaba waxaa lagu sheegaa inay tahay saliidda. halkii qaado oo saliid ah waxaa lagu sheegaa qiyaas ahaan in laga heli karo 119 kalori ama nafaqo ah iyo 14 garaam oo dufan ah. saliid saytuunka waxaa laga helaa baruur fudud taas oo yaraysa dufanka jirka kana hortagta xanuunnada wadnaha ku dhaca. haddii aad doonayso inaad miisaan hesho waa inaad isticmaashaa saliiddan xaddi badan maadaama aad jimicsi badan ku gubaysid. saliiddan ka isticmaal hal qaado mar kasta cuntadaada insha allah waad helaysaa miisaan caafimaad qaba. qodobka 6aad cunno shiidashada. helidda xaddi badan oo cunto ah waxay sahlaysaa inaad hesho miisaan wacan. isku shiididda cunnooyinka leh nafaqada iyo energy waxay kugu caawinayaan inaad cabitaan ahaan u cabto xaddi badan oo energy iyo nafaqo ah. isku darka borotiinka budada ah, khudaarta miraha iyo looska waxaad ka heli kartaa 500 ilaa 600 oo kalori ama xaddi isugu jira nafaqo iyo tamar. intaasi waxaa dheer ma dareemaysid dhereg markii aad dareere ahaan u cabto cuntadan. haddii ay ku dhibayso cuntada nuucyadeeda adag waxaa lagu farayaa inaad maalinkii 2 jeer shiidato cuntadan oo kale. helidda miisaan waa wax adag laakiin hadafkaaga jirdhismeedka waa inaad diiradda saartaa sixitaanka cuntadaada. jirkaaga oo hela nafaqada uu u baahan yahay waxay ka caawinaysaa inuu noqdo mid haysta caafimaad wanaagsan. cunidda raashin waxyeello kuu geysanaya ma ahna inaad ka raadiso miisaan wanaagsan oo caafimaad qaba ama jir weyn, balse isticmaal cunnooyinka nafaqada leh iyo macdanta kala duwan. ugu dambayn inta aadan bilaabin cunno sixitaanka la tasho dhakhtarkaaga si uu kaaga caawiyo waxa aad u baahan tahay iyo wixii kaloo ku dhibaya. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, hana iloobin inaad subscribe dhahdo janaalka, gambaleelkana aad furato. commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladan oo kale. fiidiyowga inoo xiga insha allah.